السلام عليكم waxaan joogaa magaalo la yiraahdo Kisumu saakan waaga wuxuu nagu bariyay aan dalxiis u soo aadnay gobolkan awal la oran jiray ama ismaamul ahaan loo yaqaanay Nyanza Kisumu ayada naftirkeeda waa magaalo madaxda ismaamulka Kisumu waxa la aasaasay taariikhyahanada sheegan 1900 ilaa asaasay dadkeeda cadad sukaankeeda ama tirada dadka ku nool tirakoobkii ugu dambeeyay waxa la sheegaa 500,000 inuu ku dhow yahay Kisumu waa magaalo ganacsi ah Lake Victoriana dhinaca ay ka saaran tahay waxa inta ugu badan degaa qolyaha uu ka dhashay mucaaradka weyn ee Kenya Raila la yiraahdo la wada yaqaano mucaaradnimada caan ku ah Kisumu waa magaalo ganacsi ah waxa ku teedsan Migori oo ayadana county ah Kisii ayadana county ah dhankaano waxa kaga teedsan labadaas county waxaan u maleynaa si aan ku talagal ahayn ana u qasdin anaga naftirkeena inaan soo marnay goboladaas hadda aan sheegay Migori iyo Kisii meeshan aan taaganahay waa halka ay ka ganacsadaan Soomaalida ku dhaqan Kisumu waxa la yiraahdaa New Garissa inta ugu badan waxay iibiyaan waxyaabaha fudud dharka ay ka mid yihiin alaabaha guriga ay ka mid yihiin baaga la qaatay ay ka mid yihiin waxyaabahaas ay iibiyaan asal magaalada marka laga reebo dadka deegaanka waxa ganacsi ahaan u joogay qolyo Hindida waxaan u maleynaa waxyaabaha waaweyn inay ku soo dhamaadeen hardware-yada iyo waxyaabaha la midka Kisumu waa magaalo dalxiis waanu ku wareegi doonaa la socod wanaagsan taaganahay waa Lake Victoria waa warta ugu weyn Afrika ayaa la sheegaa waxay isku xiriirisaa ku dhawaad 3 dawladood ilaa biyahan waxay ku shubtaa wabiga Nile ee aada dhanka iyo Suudaan Masar si aad halkaas ay biyaha ku shubtaa Uganda ay sii martaa sidoo kale waxay sheer la tahay Tanzania iyo Uganda iyo Kenya Kenya qaybta ay ka haysato halkan waxa la yiraahdaa Kisumu magaaladan qayb ayay ka haysaa sidoo kale Kisumu oo kaliya ma Kisumu Kenya waxay ka haysataa ku dhawaad 5 county ayay ka haysataa marka lagu daro magaaladan hadda aan taaganahay Kisumu county Lake Victoria magaaladan waxyaabo badan oo aad u tiro badan waxyaabo fara badan oo faa'iido ay ku qabaan dadka degan area-dan waxyaabaha ku qabaan waxa kamid ah nolosha waa biyo macaan ma aha biyo dhanaan abuurkay isticmaalaan sidoo kale kalluunka ay ka dabtaan wax soo saarka inta ugu badan waxaan moodaa magaalada Kisumu inuu ku tiirsan yahay waxa ka soo baxa ama ay ka soo saartaan Lake Victoria farqi aad u weyn ayaa u dhaxeeya biyaha markay biyo macaan yihiin iyo markay biyo dhanaan yihiin biyaha macaan abuur bay leeyihiin area-dan Lake Victoria ay marto idil waa wada cagaar dhulka halka badaha biyahooda maadaama ay dhanaan yihiin aad ku arkaysid xaana iyo wax la mid ah dhagaxaan yar yar waxaan ka ahayn area-daas wax inay ka soo baxaan ee culus tahay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labada biyood ay ka mid yihiin maadaama hore aan u tagnay Malindi aan aragnay dhanka xeebta markii la aado sidee ay u tahay midaan waxba ka soo bixaynin waa sax biyaha dhanaan ah kay markii la yiraahdo dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa daawashada ay u yimaadaan dadka ajaanibta ay u yimaadaan duurjoogta ay daawanayaan ayaa dhaqaalaha inta ugu badan uu ka soo galaa
dhaqaalaheeda kan koowaad dalxiisayaashu dul saaran yahay kan labaadna wuxuu dul saaran yahay caleenta lagu hagaajiyo shaaha halka aan taagannahay waxaa ku jiro dhowr dugaag iyo duurjoog xayawaankan idiin muuqda magaciis ayaa la iska rabaa ninaan saaxiibanahay wuxuu leeyahay waa biciid yar kaleetan wuxuu sheegayaa magac kale ayuu sheegayaa golcas buu leeyahay hoos iigu soo qora xayawaankan exactly magaca loo yaqaano af Soomaali ahaan xayawaankan waa harmacad sida idiin muuqata annaga aragtida naga wada dhaxaysa maqaarkan kala baxna biciidka sidoo kaleeto jaanis hadaan ku helnaba waa dabka u dhow yahay iyo birta waa la gowraca markiiba waa la qalaa marka annaga waxaynu idil dabkan saaranaynaa laakiin dadkan inay lacag malaayiin ka sameeyaan malaayiinta inay ka sameeyaan waddanka dhaqaalihiisa lagu kabo ayay muhiimadda siiyaan xayawaankan in badan waa maqalnaa waa goronyo goronyadu ilmaheeda aboodi bay dhigtaayo heesaha iyo sugaad kulli waa lagu dhex maqlaa aad bay u qurux badan tahay xurriyad la'aan baa ka muuqata qurux baa ka muuqata sida kale kashiitooy adnama ku keeneen moqolyaa kuu soo dalxiis taga oo waa shaqaysataa may yiraahdeen biil baa la siiyaa goronyadu waa cadaysanaysaa ma dhihi karnaahe waxay cunaysa ma jirtaa siliga wax lagama cunaa xayawaankan waa baciid weeyaan halkan buu joogaa quruxda ka muuqataa bal eeg maasha allah war dabiicada fiicana daanyeerkaan naqaanaa asiga naftarkiisa dadaa u soo dalxiis taga adiga uma soo dalxiis tagtid maadaama aan sawirayno duurjoogta waxaa khasab ah inta aan soo sawirnay waxaa boqor u ahaa layidhi libaax ugu dambayn boqortooyada ayaan ka soo dhacnay waana kana la socod wanaagsan libaax waa kaas halkaas fadhiya maamadan way jiiftaa u malaynaa waka annaga Soomaali haddaan nahay xayawaanada waddankeena uu lahaan jiray oo loo soo dalxiis tegi jiray maadaama dadkii naftirkooda ay qaxeen ee waddamo shisheeye ay ka dhaceen xayawaanadiina way soo guureen Kenya dhan ka soo galeen ma dhahay Kenya naftirkooda xayawaano ma lahayn ma dhahay way leeyihiin sidoo kaleeto maadaama Kenya ay xayawaano leedahay annaga kuweeni rasaas maysan laayinin way soo firxadeen sidii dadka u soo firxadeen xayawaanadan waxay ka mid yihiin noolaha inta ugu badan nabadda jecel ayay ka mid yihiin buuqa ma jeclo duurka markaad gashid ama duurka dhex socotid jabaqda way dhibaysaa waa inaa aragteen in kala ma aqaan jabaq markay maqlaanba markiiba weyfi oo ay cararayaan taasaa ka garan kartaa inay ka mid yihiin noolayaasha inta ugu badan jecel nabadda inay ka mid yihiin duurjoogto soo duurjoogta kuwa dadka hilibka cunaa culimada waagii hore waxay u qaybiyeen maxaa la yiraahdaa duurjoogta kuwa hilib cuna iyo kuwa coos cuna kuwa hilibka cuna anaga halis nagu yihiin libaaxa kamida shabeelka kamida haramacadka yeeyda waxana kamida kuwa cooska cunana way jiraan marka kuwa cooska cuna anaga cun kuwa hilibka cunana ayaga cuno marka xayawaanada hilib cooska cuna qaarkood way joogan anaga bareen inta ugu badan taasna ma aha ra'i saxan haduu ilaahay noo xalaaleeyay wax walba xalaal ma aha in la bareeyo noolaha naftirkooda noolaha kale naftirkooda waa adiga camal nololay u baahan yihiin waa in la ilaaliyaa ma aha in dab lagu ridaa maanta idil bilaa macno loo cunaa ma aha tala saxan ma baahi wax waa loo cuni karaa xataa ariga waxa la yiraahdaa baahi u cun laakiin iska dilay iska cun ma aha tala saxan ma